بسم الله الرحمن الرحيم إله هذه موي إله كلام مجرو هي بيلاحظي باللغو مغني هاي بيلاحظي باللغو مغني هاي الله سودو هذا الله سودو هذا الله سودو هذا ما شاء الله ما شاء الله هذا يا أميتو إن عثمان سودو هذا ودي سلام يا يارتي هرمادي أو أي قومية دمساي كله قينسو يعني كسوي دوينا يا إنتان برنامج كأنه وجلين daawadayaal soo dhawaada maasha allah soo dhawaada axmed cumar oo kusoo dhaweynaya fahmi maxamed cumar sidoo kale gudoomiye sare hodan sidoo kale soo dhawaada dhammaantiin insha allah goordhow waxaan u geli doonaa barnaamijkeenii qarada weynaa aynu ugu magac darnay cadowga koowaad xilqadiisii shanaad ayaanu caawa halkan kasii tabin doonaa soo dhawaada bintu dhiirane saara diiri habo aad baan kuu salaamaya soo dhawow odayga xaafadda maasha allah waa la wada dhoonyahay sanweyne alloo xir aad baan kuu salaamaya masar qadar soo dhawow qadar oo daahir salaan sare walaal sidoo kale goordhow ayaan u geli doonaa kulley barnaamijkeennii aan ugu magac darnay cadowga koowaad qaybtiisa shanaad hadduu ilaah yidhaahdo barnaamijkeena waxaan kaloo aan ka marnayn siyaasadaha guraacan ama isqardoofka ka jira geeska africa gaar ahaan xaaladda imika cakiran ee marsada magaalada berbera iyo dadka soomaaliyeed falcelinta ay ka sameeyeen dhaxal wareejinta lagu hayo deegaanadeena marka goordhow ayaanu geli doonaa soo dhawaada khiyaarta alla soo dhawaado alla sheer gareeyo aad baan kuu salaamayaa master jookle soo dhawow hadi maxamed sidoo kale marka harimaadeedan aan bal in yar ku yara nasanno inta aan dadka soo gelayaan araartana aan ugu gelin waa dhaqamada geeska africa gaar ahaan qowmiyadda masai oo ku luuqeynaysa cod cajaayib ah oo aan laga soo jeexay ciyaarta soomaaliyeed ee loo yaqaana harimaadeega qayb u eg weeyaan sida aad la socotaan dadka masayda waxay wax xoogaa un kaga soo horreeyeen dalka kenya ama tanzania maanta ay degan yihiin qowmiyadda ay bahwadaagta yihiin ee jaarka yihiin ee sida turkaanaha iyo qowmiyadda loo yaqaano sambuur iyo dadka asalka u soomaalida ahayd layaa rendiinle marka qaabkay ugu luuqeynayaan iminka dadka kushaytiga ah iyo dadka nailotiga xiriir badan ayaa jira oo ka dhexeeyey waqtiyo hore oo aada u fog marka waa cajaayib dhaqamada aanan suulin ee geeska africa weli ka jira ayay qayb ka tahay marka waa idin soo dhaweynaya soo dhawaada xasan muuse habeen wanaagsan walaalo aad baan kuusoo dhaweynaya habo sahro maasha allah aad baad umahadsan tahay marka hala soo dhawaado insha allah goordhow barnaamijkeeni baan u gudageli doonaa hadduu ilaa yidhaahdo hinraaga iyo gurdanka aad maqlaysaan iyaguna waa qowmiyadda zulu ay ku dhaqan dalka south africa guud ahaan dadka afrikaanku waxay leeyihiin
xidid hoosaad ka dhexeeya oo ay ku ilaashadaan milgaha dhaqankooga ee soo jireenka ahaa. dadka Zuluga ah marka aad dhaqankooda aad u kuura gasho ama aad daristo waxaad ku arkaysaa dhaqamo badan oo ka jiray deegaanadeena oo minguuray ama ka tallaabay xadadka iyo webiyaasha sida Zambezi iyo Limpopo ka tallaabay. dhaqamadaas oo ka mid ah qaabka dhalinyaradu marka ay gaashaanqaadka yihiin loo agaasimo hubqaadkooga iyo qaabka ay loo kala duwo gaashaanqaadka iyo kan guurqaadka ah iyo ninka hogaamiyaha ah qaabka loo kala duwo oo ah dhiiqo ama dhoobo kala gedisan oo midabadaasi oo lagu kala garto ragga kaalinta ay bulshada kaga jiraan. marka dhaqamada Afrika dadka ay kusii dambeeyaan xoogooga waa dad in badan wax ay annaga dhulka yaga aynan ka jirin dhinaca u sii hayaamay. markasto oo dhaqankaada uu fogaado waxaa manfacsanaya oo ka faa'iidaya bulshooyin kale oo jecel inay ku dhaataan ama ku faanaan wixii adiga aad lahayd ee waa hore jiri jiray. weli hasaabihii waan ku jirnaa. hala soo dhawaado insha Allah. hala soo dhawaado Sumaya soo dhawaan ku salaamayna. Xasan Dhuux sidoo kale. marka hala soo dhawaado hala share gareeyo insha Allah. barnaamij aad u mug weyn oo ku saleysan waxaynu ahayn iyo waxaynu soo ahayn iyo halkaynu joognay waa qaarkood ayaynu ka hadli doonaa. ballanteenu waxay ahayd 6:00 saacadan wadankan Ingiriiska aynu joogno, laakiin waxaan nooga soo hordhacnay waqtiga isbedelay darteed iyo dadka oo inta badan codsanaya in hore barnaamijka loogu soo dhigo. marka hala soo dhawaado goordhow ayaan barnaamijkeenu u gudageli doonaa insha Allah. waan ku soo dhaweynaynaa runaantii qolada calanka saska ka qabta, qolada calankani 5 geesood leh saska ka qabta waynu idin soo dhaweynaynaa. waan idin dabiibi doonaa insha Allah. waa laydin dabiibi calanka cad yar inta laydin soo gooyo oo laydin yara shiilo oo dadabana wax laydinku daro ayaa laydinku qulaamin insha Allah. waynu idin dabiibi doonaa. marka waa dad baa nooga kii soo horeeyay insha Allah. dhib ma lahan. waa aragtidiinana waan soo dhaweynaynaa. hala soo dhawaado daawadayaal. hala soo dhawaado hala sheergareeyo goordhow insha Allah. barnaamijkeennii ayaanu gudageli doonaa aynu ugu magac darnay cadowga koowaad firqadiisa shanaad. barnaamijkan oo ahaa barnaamij soo jireen ah oo aynu si quban u yaala idinkugu soo tabinaynay. 4 qaybood oo horena ay halkan ka baxeen. Airo TV oo aad nagala socotaan mar walba iyo aaladda Facebook ayaan idinkaga soo tabinay. ummad waliba waxay leedahay waxa ay ku dhaadato oo ay ku ay ku faanto haddaan jilciyo. marka wixii aad adigoo lahayd inaad ku faanto halkay ahayd inaad caydo waa qayb ayaan darrada ama nasiib darrada ka mid ah. marka waa dhammaantiin waan soo dhaweynayaa ikhyaarta qiimaha leh rag iyo dumarba meel kastoo dunida ka joogtaan. mar kale waxaan idinku soo dhaweynayaa gurdanka iyo dananka fardaha inagu soo maqan barnaamijkan foodo idinku soo haya. waxaad maqlaysaan waa gurdanka qoobabka fardaha loo darbay inay ka qayb qaataan dagaalada dabiiciga ah ama dagaalada jihaadka ah ee ummadi isku ilaaliso ama ay ku ilaashato deegaanadeeda iyo danteeda iyo dhiigeeda iyo dhalashadeeda iyo diinta ay aaminsan tahay. waxaa kaloo maqlaysaan jabaqda ama codka
dananka farduhu marka ay dagaalka ku jiraan qaab ay codka u sameeyaan baa jira. marka ay nagi yihiin ay fadhiyaan ama wax cunayaan ama wax cabayaanna qaab ayay jabaq u sameeyaan. marka jabaqda iminka aad maqlayseen waa jabaqda dhiilada markay dagaaladu socdaan ee raggu is helo qaabka ay farduhu codkooda u gudbiyaan iyagoo qayb ka ah dagaalka markaa halkaa ka dhacaya. markaa sidaa loo ogaado dadka dhalinyarada ee aanan aqoonin nidaamka waxa loo yaqaana dananka ayaa noogu talagalay. dadka intooda badan way garanayaan. xayawaanku ama nooluhu wuxuu leeyahay jabaq ama cod uu sameeyo. codadkaasina waxay kala leeyihiin heer iyo magac iyo martabad ayay kala leeyihiin. marka ma oran karayno faraskii baa ciyey, ma oran karayno faraskii ayaa guryamaya, lama oran karayo faraskii ayaa cartamaya. marka mid waliba afkeena hodanka ee Soomaaliyeed xayawaanka ama xoolaha aynu dhaqanno ama duurjoogta iyo dugaaga noocu doono ha ahaadee mid waliba jabaq ayuu leeyahay ama cod ayuu bixiyaa. codkaasi oo ka gedisan ilaahayna ku ihaaneeyey inta kale ee noolaha ah. kolkaa dadkeennii hore waxay lahaayeen dad abqariyiin ah oo ka tarjuma ama ka hadla. codadkaasi waxa ay kala yihiin inuu maalin dhiila joogo, inuu maalin nabadeed joogo, inuu maalin barwaaqo uu ku jiro, inuu colaad saadaalinayo, inuu maxaa la yidhahdaa sida oo kale nabaddarro ay jirto. shimbiraha dugaaga oo duurjoogta dabjoogta nooca domestic animalka la yihahda annaga bili-aadanka la nool xoolaha aynu dhaqanno mid waliba wuxuu leeyahy jabaq gooni ah. marka insha allah goordhow ayaanu hadduu ilaah yidhaahdo barnaamijka u geli doonaa. waa hagaag waxaa laiga codsaday waxaa layidhi waa inaad calanka muujiso. waan ka xumahay birtii baa calanka ka jabtay. birtii aan ugu talagalay ayaa halkaasa ilba hagaa ka soo baxayso. waa la cawriyayaa calankii qudhiisi waa la cawriyayaa waayo dad baa ka xun calankan jiritaankiisa. dad baa ka xun. dad baa markay arkaan sasa ama salala caruurtaa sasa laakiin dadka waaweyn way salalaan. dadka waaweyn way salalaan markay calanka arkaan. hadda ka hor ayuu nin saaxiibbaa nahay oo aada u qiimo badan wuxuu yidhi waxaa jira dad markay calanka soomaalida arkaan indhuhu ka dhacaan oo araggu markaa uu ka suulo. waxaa kaloo uu yidhi waxaa jira dhaqameed ciyaar dhaqameed waddanka Spain laga ciyaaro oo ku salaysan dibida ayaa laga caraysiiyaa, dabadeedna meel baa lagu xiraa, dabadeedna midab uu necab yahay sida casaanka oo kale ayaa la hordhigaa. dibiga midabka casaanka marka sidaa loo tuso waa ciyaar aad wada daawateen caalamkana ka daawateen. wuu soo ordaa, dabadeedna waa laga qariyaa, xagga dambaa la mariyaa. marka wuxuu yidhi saaxiibkey qolo waxaa jirta calankaa la tuso markaasay salalaan oo hurdada ka boodaan oo cuntada diidaan oo sariiraha ka daataan oo matidi joojiyaan oo dawooyinka qaadan waayaan, dabadeedna way soo yaacaan. waa laga yar qariyaa un haddana sidii oo kale ku noqdaan. marka insha allah waxaa aada u ayaan daraa qof Soomaali ah oo astaantiisa diidaya. qof Soomaali ah adduunka lama sheegi lamana maqal. qof British oo Britishnimadiisa diidan lama arag. qof Spanish oo calanka Spain diidan lama arag. qof Swedish ama Norwegian ama Kenyan lama arag oo calankiisa diidan. qof wuu diidi karaa oo qof waad qaban kartaan, siyaasad baad ku diidi kartaa, aragti baad ku diidi kartaa, waxyaabo badan. laakiin astaantan lagugu yaqaan ee aabbaha iyo awowgaa iyo awowyaashaha ay ku soo caanamaaleen in aad diiddo waa qof ku dhex jiro weeyaan. dadka hore waxay oran jireen qofkan waan fahmi laanahay talo miyaa lagu dhex jiraa baa la oran jiray. marka waa la qiiqi jiray. xanuuna waxaa jira wax loo yaqaano xanuun dhaqameed ayaa ka jiri jiray deegaanadeenna. xanuun dhaqameedyadaasi qayb maanta ka noqotay calan diinnimada iyo astaan diidka. marka waan soo wada dhaweynayaa daawadayaal meel walba adduunyada dacladeeda ka joogtaan. soo dhawaada. waa barnaamijkeennii cadowga koowaad xilqadiisii 5aad.
ee aad kala socoteen Airo TV iyo aaladda Facebook oo toos ah. maanta waxaynu halkii kasii wadi doonaa qaybteeni shanaad oo aynu ugu magac darnay kacaankii kurbada fayday. marka inta aanan u gelin barnaamijkayga aaraar baan yar hormarsanaya hadduu ilaah yiraahdo. hala soo dhawaado hana la sheergareeyo. aaraarteeda marka waxay tahay waa afeeftaasi ayaan doonayaa marka inaan barnaamijkeeda daafur ooga dhigo. qalbiyada ilaahay waxaan ka baryayaa isagaa qalbiyada rogroga. ilaahay bulshadeena Soomaaliyeed in qalbiyadooda ay isu rogaan halka ugu wanaagsan ee muxubbadu ay caagaagto ayaan ilaahay ka baryayaa. dadka Soomaaliyeed sanadba sanad ka dambeeya inna waxay ka sii socdaan daaqada iyo salaankii ka daadanayaan. inna way ku dhaadanayaan Soomaalinimada oo way ku dhimanayaan. laakiin waayo hore ama sanado hore ama qarniyadii hore dadka Soomaaliyeed meel qoray ku wada dhiman jireen, sida shinnida ama xayawaanka qaarkood isku hilbadiriro ayay ahaayeen. marka waxaa la oran jiray meel rag ku faagtay haddana rag ku faalshay haddana rag ku fayoobay. yacni waxa weeyaan halku dhegyo cajiib ah ayay ahaan jirtay. marka waxaan ilaahay ka baryayaa in uu ummadda Soomaaliyeed bogooda burcad u soo mariyo. ilaahay isaga qalbiyada rogroga inuu ilaahay bulshada qalbigooda dibadda keeno oo ay noqdaan dad qalbi xabxaba oo isu beer nugul oo isu garab laalaadsha oo isu carab laalaadsha oo cadowgoogana oo indhahooga si fiican u arko ayaan ilaahay ka baryayaa. intaa kadib barnaamijkeenaasi waxaa ku laran oo qaybta dambe aynu kaga hadli doonaa carqaladaha ama ismariwaaga siyaasadeed ee geeska Afrika mar walba ka curanaya ama sanad walba ka taagan. arrinta maanta marka aadka loo hadalhayo ee dhiilada xambaarsan waxa loo yaqaano mowraduuga, ee xambaarsan sumaddheega, ee xambaarsan dhaxal wareejinta ayaanu iyaduna ka hadli doonaa. intaa kadib barnaamijkeenii taxanaha ahaa ayaan u gudagelayaa. waxaa kaloo idinka codsanayaa dhammaan daawadayaasha qadarinta iyo qiimaha leh ee Soomaaliyeed, labadii qolo hore aan u sheegay inaynan waqtiga isaga lumin. kow, nimanka liyada faallaquutayaal ee faallada quuta ama commentiska gasiinka ka dhigta ee cuntada ka dhigta ha ku kadsoomina, hana ku mashquulina. labo, qolada aan u bixiyey xumaangayaan ee xumaanta ungeeya iyagana ha ku kadsoomina, hana ku mashquulina. qofkii cay iyo aflagaado soo qorayo isagay u taal, xor buu yahay. marka qof walowba waxa aan barnaamijka ugu talagalnay waa barnaamij aan ugu talagalnay inaynu ka faa'iidaysano nafteenna iyo nafaheennaba hadduu ilaah yidhaahdo. aamina waan kusoo dhaweynay walaalo. midnimo saxardiid soo dhawow. wariye sare soo dhawow. marka labada qole waqtigaas ka qaadina. horeyna waan ooga hadalnay, idinkana waa idinkaga digayaa, annagoo nafteena waan kaga digayaa. waayo waxaa jiro hadal aan jawaab lahayn baa jira. marka dadka qaar jawaabta ayaa ka qiimo badan kana sarraysa inaad u jawaabto. marka afkaaga ka xiro. waa iga dardaaran, waana iga afeef. intaa kadib barnaamijkeenna qaybtiisa maanta waxaan u bixinay kacaankii kurbada reebay. kurbo waa max? kurbo waa lur iyo laxow iyo xanuun iyo dhibaato isku sidkan oo ku hayso. 1506 wuxuu ahaa sanad uu dhashay geesii la hollin waayey oo laga oo'ay oo noqday diiftire iyo ciiltire. calankeenaasi waxaa la yihahdaa ciiltire, waxaa kaloo la yihahdaa diiftire, waxaa kaloo la yihahdaa cawaale. 3 magac oo cajaa'ib uu leeyahay. waa ciiltire, waa diiftire, waa cawaale. sanadka 1506 waxaa dhashay halyeyga Soomaaliyeed bad iyo beriba lagu xardhay ee qalbiyada ummadda Soomaaliyeed ee Soomaaliyahanka ah ku xardhan. waa Imaam Axmed Ibraahim Ghazali
axmed gurey oo ummadda islaamka iyo dunida caalamka looga yaqaanay duulaan badane kan dharaar iyo habeenba fariisan kan wanaagga dadka ugu yeera kan halganka u hiliila ayaa la oran jiray. dhalashadiisii iyo hanaqaadkii axmed gurey iyo qofkuu ahaa ayaynu maanta ka wabxaynaa. nin walooba weelka ballaadhso, go-aaga u fidso, wax allaala wixaad ku qaada karayso ku qaado. markaa intaa kadib barnaamijkeenaasi halkaasuu maanta inooga socon doonaa. waxaa yar oon doonayaa inaan idinkugu daro, wax waliba oo aad maqasho ama dhaayahaagu dheehdaan ama dhagahaagu maqlaan, waxna waa wax ku anfacaya haddaad si mugla u dhugato. waxna waxaa laga yaabaa inaysan maanta ku anficin, laakiin maalinaan maanta inay ku anfacaan. marka waktigu ciyaar maaha, waxaad maqashay iyo waxaad aragtayna sahal maaha. haddaba halkaasaynu kasii wadi doonnaa. imaam axmed gurey ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo. sanadkaa uu dhashay wuxuu ahaa sanad la baraaray, wuxuu ahaa sanad ka soocan sanadihii ka horreeyey. bulshada soomaaliyeed ee 1506 ku noolee dhulka maanta la haysta ee ogaadeenaya ama Soomaali galbeed ama bariga Afrikaba ku nooleed waxay ku jireen walaahow iyo murugo iyo calooliyow iyo iyagoo ka fakaraya aayatiinka ubadkooga halka uu mudan doono. waxaa la yidhahdaa Soomaalidu tiraahdaa ragga iyo geeluba hal door kama dhammaado. dad badan oo Soomaaliyeed oo xilligaa jiray way isdhiibeen, noloshoodu waxay ahayd ligan, halkaan umaysan dhacin. laakiin ilaahay wuxuu u soo bixiyey oo uu ka dhaliyey dhuuxooga iyo anuunkooga iyo gudahooga ka dhaliyey imaam axmed gurey oo ahaa qof aanan la loodin oo uuna u baahnayn inaan halkan caawida kaga sheego. laakiin waxaa muhiim ah qofka wanaagsan in loo dhegnuglaado, la dhegaysto ka hadalkiisa. guulaha uu soo hooyey waa guula aan ka warrami doonno insha allah hadduu ilaahay nafta nagu gaarsiiyo. laakiin dhalashadiisii iyo xanaqaadkiisii baan caawa doonaya inaan halkaa idinkala wadaago. imaam axmed gurey wuxuu ku dhashay magaalo la yidhaahdo hoobad oo dhex u ah magaalada saylac ee qadiimiga ah iyo magaalada la yidhahdo jaldayse. hoobad waa magaalo taariikhi ah, qofkii arkayna wuu arkay, qofkaana arkina waa magaalo magaceega iyo dadkii ka aflaxay iyo dadkii halkaa ku dhashay iyo dadkii ku kacaamayba ay ka muuqato. hoobad dhalashadaasi marka uu dhashay 1506 imaam axmed gurey waxa uu bilaabay isaga oo da'yar. Soomaalidu waxay tiraahdaa geesi dharab kuma jiro. dharabta waxaa la yidhaahdaa aalad hadda dhulkeeni ka dhammaatay oo ka idlaatay. sida la sheegay keliya waxaa laga isticmaalaa maalinka maanta ah gobolada baa iyo bakool ayaa laga helaa. sida la sheegay dharabtu dad badan way xaliyaa inay maskaxdooda ka guurtay oo caawa dib u xasuustaan. waa aalad hooyadu ama waa qeyd ay hooyadu ku xambaarto sabiga, ilmaha lagu xambaaro. waxa weeyaan tan maanta reer galbeedka isticmaalaan ee ilmaha inta la gasho halkan saableeda lagu xirto ama xagga daba la maray ayay la micno ahayd. waxaana laga samayn jiray saanta xoolaha ayaa laga samayn jiray. marka waxaa la oran jiray geesi dharab kuma jiro. yacni qofka isaga oo yar oo sabi ah ayay muuqatay geesinimadiisa. waayo waxaa jira bini-aadanku ilaahay wuxuu siiyaa waxa loo yaqaano burji iyo biriir. qof yar oo burji lahaa jira oo burjigiisu uu muuqdo. dhalashadiisii marka biriirta iyo burjiga ayuu isku darsaday isagoo sabi ah, isagoonan xanaqaadin oo aanan gaarin xilligii xanaqaadka iyo gaashaanqaadka ayaa waxaa dadku u hilaacay qofka uu yahay. dadku waxay ku jireen murugo iyo hoos u foror. timaha ku baxay dadka Soomaaliyeed waagaasi timaha ayaa la baxsan jiray. waxaa la marin jiray xookida geela ayaa xookida subaga geela ayaa laga sameeyaa.
waxaa kaloo la marsan jiray asalka, waxaa la marsan jiray dhoobo. hadday markaa barnaamijku furaya aan idinkaga sheekay dhoobooyin isugu jiro casaan iyo hurdi iyo akhtar iyo maxaa la yidhahdaa nooca masciideedka u eg, dhoobooyin noocaasaa la marsan jiray. waxaana loogu talagalay inay noqdaan timo dhaadheer oo halab leh oo markuu cadowgu arko uu ka giigo. timahaasi waxay qofka u muuqaalkiisa u samayn jireen sida biriirta ama muuqaalka libaaxa oo kale. cadowga markay uu hor istaago ninka Soomaaliga ah oo timihiisu halkaa marayaan oo midabaysan oo jeeni qaarsan oo hootada iyo warmaysa sita, cadowga wuxuu bilaabi jiray inuu geliiro jareeyo, dabadeedna uu marka dambe jirku dubaaxiyo samayn jiray. intaa kadib waxaa dhacday xilliga ayada ah sida aan sheegay, xaaladda maanta aan ku sugannahay ayay heerkaasay marayeen ummadda Soomaaliyeed ee xilligaa taagneed dhalashadii Imaam Axmed Gurey. ummadda markaa waxaa hogaaminayay oo taariikhiisa hore uga soo sheekeeyey ninka la yidhaahdo Garaad Abuun Cataash, oo aan nin cajaa'ib ah oo taariikh badan ku leh dhulka Soomaaliyeed iyo deegaanadaasi ummadda geeska Afrika degan ee Islaamka ah. Garaad Cataash wuxuu la daalaa dhacayay gaboodfallada iyo musuqa iyo eexda iyo xabashi uduska. maanta xabashi uduskan jira ayaa bilowday markaa iyada ah. dad Soomaaliyeed oo jidgooyo samaystay oo xabashida u hilba taga oo u haasaawo taga oo dadkooda dabxa ayaa jiray. magaalooyinka Hoobad iyo Herar iyo meesha la yiraahdo Dadkarna inta aan la dhisin iyo meesha maanta jinicsan ay ka dhisantay ilaa Saylac inta u dhaxeeyo, waxaa la waayay qof Soomaali oo tallaabo qaado. sida ay burcadu u badatay, sida uu u batay dhibaatada iyo gaboodfallada. Garaad Cataash wuxuu markiiba la fahmay oo uu arkay firfircoonada Imaam Axmed Gurey duulaan badane si gooni oo la faqay. hadalladu ku yiri waxaa ka mid ah inan yahow ama wiil yahow, waxaa kaas dhex sinaaraya ama kaa dhex hadlaya hoggaan aad u qaraweyn iyo inaad noqon doonto haliyey lagu nasto oo haakah lagu yidhaahdo. dhiirigelintii uu Garaad Cataash Imaam Axmed Gurey ku dhiirigeliyey ayay hadalladaa ka mid yihiin. Imaam Axmed Gurey isagoon 20 gu gaarin, 20 gu isagoon gaarin ama 20 jir isagoon gaarin ayaa waxaa loo ballan qaaday in loo dhisi doono gabar aad qaali u ahayd oo markaa ka mid ahayd saldanadii markaa markaa meesha ka jirtay. gabadhaasina waa gabadhii uu magaceeda hirgalay oo uu magaceeda dhulka Soomaaliyeed oo dhan gaaray ee la oran jiray Baati Dalwanbara. Baati Dalwanbara waxay ahayd halyeeyad iyaduna ku suntan jihaadkii Abasiniyiinta lala galay ee Soomaalida ay har iyo habeenba wadeen. qaabku u dhacay insha Allah dib ayaan ka soo sheegi doonaa. 20 gu isagoon gaarin maadaama arrintiisa ay sidaa ahayd, waxaa la soo sheegay dhiiladaa waxay noqotay in Garaad Abuun uu naf dhowr yahay, uu sakaraadayo. xilka markaa iyada ah ee la wareejinayo waa xil ka culus wax waliba oo markaa jiray oo mug ama qara lahaa. xilkaasi markaa qofka lagu aaminayo waa inuu noqdo qofka nafdayska ah. Garaad Cataash oo nafdays ah oo sakaraadayo waa qof uu ku samro inuu helo. Imaam Axmed Gurey oo 20 gu gaarin oo asaagii ay weli dee dhalinyar yihiin oo gaashaanqaad ay yihiin ayna gaarinoo ay weli la laylinayo ayuu yiri Axmed Gurey waa hawshan qaban karaya, cid kale laguma aamini karayo. Axmed Gurey markaa wuxuu haystay tababar uu siiyey ninkii la oran jiray Cadli oo ahaa nin aad u yaqaano habka iyo naqsadaha dagaalka loo sameeyo. Cadli wuxuu Axmed Gurey baray fardafuulka, wuxuu baray qalmarogodka, wuxuu baray sida loogu dagaalamo fardaha dushooda gadaal iyo hore, wuxuu baray fardaha oo bilaa xakama ah in la wado ayuu baray. wuxuu baray warmaha, waranka
dadka Soomaaliyeed waxay ajaa'ib ku ahaayeen waranka meesha laga lekeeyo waranka halka laga lekeeyo ama lagu mudo hanjilciye ayaa waran kale laga dulmudu jiray maanta adduunka waxaa jiro ciyaaro lagu faano ee gidaarada lagu ciyaaro oo lagu tartamo dadka hore Soomaalidu waxay ahaayeen fallaar ayaa fallaar laga dhex bixin jiray sida ay shiishka u yaqaaneen dadka ugu shiishka yaqaanay ee ugu ajaa'ibsanaana waa dadkan walaaladeena maanta aynu haybsoocayno haybsooc ma jirin Imaam Axmed Gurey markuu joogo haybsooc ma jirin waxaa jiray wax yar tare ayaa jiray wax matare ma jirin barigaasi maanta laakiin wax mataraha nagu batay aan ka sii socdo intaa kadib waxaan doonayaa oo maanta ugu talagalay barnaamijka halkan aan ku soo diyaariyay Imaam Axmed Gurey ma aha barnaamij aan maalin iyo 2 iyo 3 iyo 4 kaga bogon karno laakiin waxaan ugu talagalay qofka uu yahay inaad qalbiyadiina ay dheehdaan oo aan idin geeyo oo dib idin celiyo waayo sama oo sama iyo xumaba iyagoo isku sidkan la kala saafay dabadeedna samihii oo saa u dareerayo laga soo dhex saaray waa waayo sama maanta xaaladaynu ku jirno iyo xaaladda maalinta 1506 ku jirnay waa isku mid laakiin rag baa u kacay oo kala saafay oo kala meeray oo xumaan wada iyo shar wada hangool ku qabtay dadkii jarabaxsanaa ee hagaagsanaa ee wax fahansanaana ka soo dhex saaray bulshada oo hoggaan aan la hollin ka dhigay Imaam Axmed Gurey mas'uuliyaddii marka uu qaaday markiiba wuxuu bilaabay sidii macallimiintiisii ka horreysay inuu madaxa kor u qaado ninka ragga ama geesiga waxa lagu yaqaanaa qortiisu hoos uma maartay oo ma dhaadhacdo garbihiisuna ma noqdon kuba jilicsan sidaas oo kala ah Axmed Gurey xilkii marka loo dhiibay madaxiisi cirkaas uu si taagay garbihiisuna waxay noqdeen kuwa qofka ka dambeeya aan la arki kareynin isla markiiba wuxuu bilaabay inuu yiraahdo dadka iyo deegaanka inta maanta aynu gacanta ku hayno iyo in maqan inta maqan waanay ka soo hadlay barnaamijyada horan kaga soo hadlay dhulkii xoogiisa in la soo qabsaday deegaanadii ugu badnaa oo qaarkood markaa la haystay sida Baali iyo Dawaare iyo dhulka waanay ka hadlay agow iyo dhulkii deganaayeen Mansa ee Addis Ababa duleedkeeda dhulkaas oo dhanba in gacanta lagu dhigay iyadoo loo marayo awr kiraalayaal iyo dadkii markaa qaarkood inta ummadda dagay maantaba way nagu jiraane kuwa ummadda daga ee inoo eg laakiin aan uurka annaga ka ahayn ayaa iyagu laftooda berigaa jiray isla markiiba wuxuu bilaabay arrintaa inuu sameeyo oo uu yidhaahdo hala istaago ciidankii marka Garaad Adoosh uu ka geeriyooday ayuu isku soo duubday oo aan tiro badan ba ahayn dabadeed wuxuu bilaabay arrintaasi markay halkaa marayso dagaalyahan nin la yiraahdo oo xabashi ahaa oo asalkiisi laakiin aan axmaar ahayn laakiin la dhala rogay oo markaa haystay gobolka Baali la yiraahdo oo aan hore uga sheekeynay ayaa wuxuu maqlay in Garaad Adoosh uu geeriyooday misna inan yara cusub loo dhiibay hoggaanka markaa mashaxarad ayuu ku dhuftay isagoo aaminsanaa inuu qaramsan doono inta hadhay ee nawaaxiga xeebta Saylac ilaa iyo Harar iyo deegaanadaasi ku nool dagaalyahan waxaa markaa uu soo diray ciidan taariikhdu markay ahayd 935 hijradii ee ku beega 1527 dagaalkaasi waxaa isaga hor yimid raggii markaa uu Axmed Gurey uu isku keenay waana dagaalkii ugu horeeyay Axmed Gurey taariikhda marka la xusayo dagaalkii ugu horeeyay uu qaado weeyaan waa tallaabadii ugu horeysay ee bulshada uu u qaado asagoo mas'uul ah meel la yiraahdo Caadir baa la yiraahdaa markii dambe magaceedu wuu isbedelay laakiin meesha Caadir baa la oran jiray dagaalkaasi halka la isku galay ee food la isku galay Caadir ayay ahayd waxa dhacday marka dagaalkaasi markuu halka ka dhacay ninka la yiraahdo
raalli ahaada qalindaar baa jira markaa mararka qaar marka lagu qalindaaro si kastoo ood bili-aadan u adkaysanayso haddana marka lagu yaro qalindaaro waxyaabaha qaarkood waxaa laga yaaba inaad dib u hinqata raalli ahaada marka intaa kadib waxaan doonayaa inaan markaa meesha kasii wadno dagaalkaasi markaa aynu maraynay meesha layihahda caadir jabkii ugu weynaa oo ugu horeeyey oo hogaankana uu u hayay imaam axmed gurey ayaa halkaasi ka bilowday oo uu u geysanayo xawashi iyo cawaankii la socday. wuxuu sameeyey inuu haddana kasoo guuray isla deegaankii uu yimaado harar, haddana isla harar haddana uu ciidan kale kasii abaabulay uu haddana tegay fatajaar meesha la yidhaahdo oo koonfur ah oo baali iyo sidaamo iyo la deegaan ahayd, isagoo markaasi ku raad joogo furashada dhulkii intii musuqa lagu jiray ama madaxa hoos loo lulinayay intii lagu jiray dadka intii lasoo qabsaday. xabashidii way isu qayla yarteen meelay joogaanba, waxay ahaayeen tiradooda oo cajaayib ahayd oo ku hubaysnaa saan hore u sheegnay helmadka wax loo yaqaano ama duruucda caalamiga ah ee ardushaam laga keeni jiray, fardaha cajaa'ibka ah ee tababaran, yacni warmaha iyo hootada iyo qolxadka cajaa'ibka ah ee ay haysteen. waxaa lagala hortegay niyad iyo haybad iyo qab soomaalinimo ayaa lagala hortegay iyagoo ciiddaa ka badnaa. tiradii marka ugu horreysay ee sida saxda ah dagaal caadi ahoo aana lasu habar wacday oon laisu aaba yeelin lagu galay ayaana iyadana halkaa ku daafuraynaa. intaa kadib intaanan u gelin aan idyar maqashiiya wax yar oo ku salaysan gurdanka iyo dananka fardaha mujaahidiinta. intaa kadib daawadayaal idinkoo mahadsan mar labaad waxaan kusii siqaynaa barnaamijkeennii qaybihii bu'diisa ama halbowlaha barnaamijka. ciidamaday markaa imaam axmed gurey ee meesha hadda aan sheegnay madaxa ama gorodda lasu gashay, qaabka loo shaandeeyey iyo qaabka naqshadda isagoonan 20 guu gaarin naqshadda iyo nidaamka dagaal ee uu u maareeyey ayaa waxay cajiib tahay. adduunka waa laga qariyey, lamana tusin qaabkii imaam axmed gurey uu u dagaalami jiray, laakiin qoraaladii islaamku ama in badan ay reebeen ama aanba iraahdaba qoraagii weynaa ee jihaadka dhinac ka ahay la socday ee la oran jiray carib faqiih, ninka qoray buugga la yihahdo fatuuxulxabash. ninkaasi waxyaabaha uu qoray ee uu ku ammaanay ama uu ku libin sheegay imaam axmed gurey waa waxyaabo maanta caalamku ay wax badan ka baran karaan, laakiin waa waxaan yani waa dadku way iska indhatirayaan mana doonaya inay wax ka faa'iidaan. waxaa jiray axmed gurey markuu dagaalka gelayay imaamka 3 qaybood ayuu ka dhigi jiray ciidankiisa. 3 qaybood waxay kala ahaayeen 1 qayb waxaa la oran jiray bardhaxaad ayaa la oran jiray, waxay geli jireen bartamaha. raggaasi waxay isugu jireen rag laga ooay oo aan soo jeesan oo dagaalka ku mamay oo aanan aaminsanayn inay jabayaan ayaa laga dhigi jiray. rag guula soo hooyey oo hooyadood iyo aabahood u duceeyeen oo libinta ku geeraara oo libinta yacni ku nagaada ayay ahaan jireen. ragga bardhaxaadka ah waxaa markaa abban horjoogo u ahaa imaam axmed gurey, ilaahay raalli ahaadeen. waxaa kaloo jiray 2 qaybood
oo la yidhaahdo baalasha ama baalalka. baalasha waxay ahaayeen baalka midige iyo baalka bidixe ayaa laga dhigi jiray. imaamku marka uu dhexda joogsado oo ciidankiisii yani laga giigay ay sidaa u diyaar u yihiin, baadka midigana ay ciidamo kale oo iyaguna sidaas kale fallaalayaal iyo hootooley iyo warmooley iyo gaadayaashii ay isugu jiraan. bidixdina sidoo kale. maxaa la samayn jiray? waxaa la samayn jiray jabaq cajaayib ah oo beerka iyo wadnaha iyo uurku jirta goysa cadowga. jabaqdaasi iminka dagaladeenna ama dadkeena Soomaaliyeed siyaabo kale u isticmaalaan, laakiin qorayaashii badnaa ee caalamka ka iman jiray ee wax ka qori jiray way sheegi jireen jabaqdaasi waxay ahayd ama sababtu markaa loo isticmaali jiray. jabaqdaasi waxay ahayd hiiraag iyo ur maaha, waa or iyo hiiraag isku xiran oo ah yahuu yahuu yahuu. 10,000 oo qof markay hal mar yahuu tiraado, yacni shimbiraha ayaa yacni waxaan ku leeyahay firxadkooga laga yaabaa. buuraha yacni intaas oo kilomitir isu jira ayaa jabaqdaas isu tabiya. markaasuu cadowga ama kayn ha ku jiro ama buur ha saarnaado ama ban ha taagnaadee, cadowgu wuxuu bilaabi jiray inuu jareeyo. jabaqdaa marka la maqlo yahuu yahuu ayaa la oran jiray. kooxda bardhaxaadka ee dagaalka isu diyaarisay tiradooda waxay ahaayeen 560 rag ah oo hubkooga iyo agabkooga uu u dhammaystiran yahay. waxaa markaa ayna ka koobnaayeen fardooley. farduhu waxay ahaayeen waxyaabaha cajaa'ibka ah. faraskuna waa uu dagaalami jiray, ruuxa dul saaran ee geesigana uu dagaalami jiray. farduhu waa waxyaabaha cajaa'ibka oo ilaahay adduunyadiisa ama bili-aadanka ama dunida ku manaystay. farasku saxaruu maraa, biyuu jiiraa, badduu jiiraa, dhirtuu maraa, dhulka omaska iyo haraadka loogu waashay ayuu dhex maraa. waa farasku waa waxyaabaha cajaa'ibka ah ee mataqaanaa lagu gallad yeelay bili-aadanka ayuu ka mid yahay. 560 fardooley oo lagu kaabay, lagu xoojiyey 700 oo nin ayaa bardhaxaadka taagan. maxaa markaa hareerihii ama baadashii oo midig iyo bidix ana ragga ciidanka ee markaa Soomaaliyeed ee taagan ee dagaalka diyaarka u ah, iyaguna aan soo horna tiradooda intii leekay. raggaasi waxaa lagu qiyaasaa ama uu halkan diiwaanka ku qoran inay ahaayeen 6,000 oo rag ah. 6,000 oo rag ah inay ahaayeen. raggaasi marka waxay isugu jiraan dadkii seefaha ku dagaalamayey, dadkii fallaadha ku dagaalamayey, hootooyinka dadkii haystay. waxaa jiray ciidamo la oran jiray gaadayaal. gaaduhu waa waxa maanta loo yaqaano dhabarjebinta ciidamada. markay labada ciidan isgalaan, laba wadan ciidan, waxaa jira dhabarjebin la yidhaahdo oo gadaal laga diro oo aan war loo hayn, oo ciidamada xagga dambe kaga yimaado, dabadeedna markaasi khalkhal ku rida awooddii ciidan. gaadayaal baa la oran jiray. beelaha Soomaaliyeedna qaarkood maanta waa laga helaa beelo magacdaas wata. ciidamadaasi halkaas markii la isku daray, imaamka inta uusan dagaalka gelin wuxuu fari jiray ciidamadiisa, halyeeyadiisa, dagaalyahanadiisa inaysan dhugan ama aysan eegin cidda ay la dagaalamayaan. waayo xabashidu koronkor bay ahayd, koronkor yacni wax aad u tiro badan. dagaalka markastay soo gelayaan waxay kusoo geli jireen dad aad u tiro badan. marka wuxuu oran jiray ha eegina ragga aad is haysaan, iyadoo ka dhigan in qofku uu waa bili-aadan. markuu 500 oo rag ah markay 100,000 oo qof ka hor timaado, waxaa dhici karta in qofkii xogaha uu xiq ama dee hoos u dhac uu ku yimaado. dardaarankaasi ha eeginta ayuu nin walba. waxaa jira rag kale oo farshaxan la oran jiray. farshaxanka maanta waxaan u isticmaalnaa artistka
laakiin farshaxanku waagaasi wuxuu ahaan jiray xirfadlayaal. waxaa qayb ka ahaa suugaanleydana waxaa ku jiray dad aad u cod dheer oo loo yaqaanay baalcad dadkii la oran jiray. suugaanleydaasi baalcadka dadka la yidhaahdo waxay lahaayeen cod aad u dheer oo yacni gaara meel aad u fog, wuxuuna tabin jiray guubaabada iyo waxyaabaha la doonaya in ciidanka la gaarsiiyo, maadaama ay aaladaha casriga ee maanta ee microfoonada iyo dee waxyaabaha aysan jirin. ninkaasi wuxuu ahaa suugaanleyda ka tirsan, marna inuu geeraaro oo gabyo, marna inuu tabiyo waxa la doonaya ee la gaarsiinayo ee ah yacni adkaysiga iyo dulqaadka iyo guushu inay dhowdahay. intaa kadib bardhaxaadkii iyo labadii baadadkii intaba marka la simay, shabaqdiina ay isqabatay gees ilaa gees, yahuudi ay isqabatay, xabashidii maxay bilaabeen? haddaba waxa ay bilaabeen ayaan doonaynaa halkaan dan inaan kusoo tabino. khaylada ay soomaalida wax ku argagixinayso, cabsidana ku ridaysa xabashida, ma ahayn mid kala go'da oo tamar iyo kaalo u baahan. waxay ahayd mid socota oo aan dhammaan ilaa intuu dagaalka ka dhammaanayo. ciidamada fallaarleyda ee soomaalida ayaa waxay mar walba samaynayeen qof waliba oo tallaabo halkuu taagnaa ka soo hordhaca, ama anuunka inay kaga mudayeen, ama ay halbowlayaasha loo go'o ay kaga mudayeen fallaadha. fallaarahaasi waxay ahaayeen kuwa u socda sida dhibica roobka oo kale. markuu ka warramayo carib faqiih, ninkaa qore bugga fatulxabash, yani wuxuu leeyahy fallaarahaasi qaabkay u socdaan ama ay u hoobanayaan dhibic roob baad moodaa, dhibic roob ayaad moodaa. intaa kadib 4 gees ayaa lagaga yimid xabashidii iyo cawaankeedii deegaankaasi fatajaar baa intaa laisku helay. kabadeed maxaa dhacay? goobtaa waxaa xabashida uga dhimatay maalinta ayada ah tirada markaa iyagu marka ay xabashidu ka sheekeynayaan jabkii ka soo gaaray dagaaladii aan ka sheekeynayna oo dhan, waxay ka dhigaan tiro intaa ka yar. laakiin isla ayaga qaybo ka mid ah oo cilmiga si fiican u baara oo deegaanadaasi ku dhashay oo aaminsan wixii dhacay inay taariikh ahayd ayaa ka run sheega. oo halkan waxaan ku haynaa rag badan oo axmaare iyo tigree ah, taariikhihii ay ka qoreen dagaaladii imaam axmed gurey uu lalabay ee uu xabashida kaga adkaaday oo ay runta ka sheegayaan. maalinta ayada ah ee meesha laisku helay, dagaalkii wuxuu bilowday gelin hore ama hiirta waa beri ayuu dagaalkaa bilowday. kolka geed iyo ruux la kala gartay ayuu dagaalku bilowday. ilaa casarliiqi waa laismirayay, ilaa casarliiqi intii salaada casar wixii ka dambeeya dagaalkaasi qaacda iyo weerarka iyo dananka fardaha iyo gurdanka iyo xinjiraha daadanayo ayuunbay xaaladdu ahayd. haadkuna saasuu u gabo lahay, saasuu u dulmeerayay. kumanaan haad ah oo saamisuga ade ayaa sidaa u dul hoganayay, oo aad mararka qaar mooduduu leeyahay carib faqiih, oo aad moodudu leeyahay hogol roobeed ama daruur aad moodo. haadka sida uu cadceedda u qariyay tira intuu la ekaa, waxaad moodaa daruur inay hadda da-aysa aad moodo, awoodda ay lahaayeen iyo tirada intay la ekaayeen. ciidankii xabashida 4 gees lagaga soo galo ayaa waxaa ugu dambeyntii la xaaqay oo laga dhigay wax carara iyo wax dhintay iyo wax ciidda lagu rogay. goobtaa waxaa xabashida uga dhimatay 10,000 oo rag ah oo isugu jiray hogaamiyayaal, waranlayaal, kuwii fallaaraha ku dagaalamayey, kuwii ku dagaalamayay fardooleydii, nooc waliba leh. saraakiisha markaa caanka ahayd ee dagaalkaasi marka lagu dilay ay istaraatiijiyadii dagaalka ee xabashidu ay isbedeshay ayaa iyagana magacooda idiin soo sheegi doonaa. intaan markaa magacooda kuwaa idiin soo sheegin, aynu ku yara nasanno hees dhaqameedkan.
intaa kadib barnaamijkeenii aanu kaga hadlaynay maanta cadowga koowaad firqadiisii shanaad qaybihii ugu dambeeyey ayaynu ku jirnaa. kaalinta maanta arrintan ama aan ugu dan leenahayna waxa weeyaan aragtida maanta ina haysata haddaynu Soomaali nahay ama qolqol joog noqo dhulka ku noolow ama qurba joog ahow, aragtida maanta jirta iyo aragtida maalintaa jirtay iyo xaaladda cakirneyd waa isku mid. waxaa la yidhi waagii baryaba waayihiisa leh, maalmaha unbaa kala gadisan, laakiin xaaladdaasi iyo xaaladda maanta in haysato waa isku mid. halka aynu ka joogno siyaasad, dhaqaale, soomaalinimo, isku hulbadir, is-sheegasho, walaalnimo, halkaaynu ka joogno waa meel aad iyo aad cajaayib u ah, oo dadku in yar oo inaga midawna ay lur iyo dhibaato ku hayso xaaladda aynu ku sugannahay. marka qodobkan aan ugu magac darnay walaal aad baan ku salaamayaa walaalo. intaa kadib aadankaaynu waan ku salaamayaa, adiga iyo riyaalo xaamud algamaa kale maasha allah halmari waan ku salaamayaa. barnaamijkan ugu magac darnay cadowga koowaad firqadiisa shanaad, oo xubinta maanta aanu ka hadlayna aan ugu magac darnay kacaankii kurbada reebay, kagana aynu hadlaynay dhalashadii iyo xanaqaadkii imaam axmed gurey, ilaahay ha ka raali noqde. qaybihii ugu dambeeyey ayaynu ku jirnaa. waxaan ka marnayn barnaamijkeena oo aynu qaybta dambe kaga hadli doonaa xaaladaha cakiran ee geeska afrika ka taagan ama bulshada Soomaaliyeed sida midiyaha la isugu dhiibayo. gabagabadii markaa waxaan kusoo gabagabaynayaa saraakiishii hogaaminaysay dagaalkii halkaa ka dhacay, raggii ku wafaaday ama lagu dabxay. raggaasi waxaa ka mid ahaa, inta aanan u gelin meesha waxa inta qof ay ahaayeen deegaankaasi markaa maalinta oo dagaalka ka dhacay. dagaalka waaga markuu bariyay bilowday ilaa casar liiqi, yacni waa deegaan maanta ummado kale ay ku nool yihiin, laakiin maalintaasi ahaa deegaan Soomaaliyeed oo qaybna ka ah dhulka la rogay ama dhulka la qaaday ee Soomaaliyeed ee gacanta ummadda Soomaaliyeed ka baxay. meesha waxaa la yihahdaa Simbiti Guray baa la yihahdaa. Simbiti Guray waa jab xabashidu ay aad u xusto. waxaa jiro jab kale oo la yihahdo Geedo Guray. jabka Geedo Guray waa jabka ay gobolada maanta koonfurta Itoobiya loo yaqaano, meesha la yihahdo Hadiya iyo Bali, ay kaga soo guureen labada reer ee la yihahdo Garre iyo Reen Diinle. Garre iyo Reen Diinle soo guuristoodii waxaa loo yaqaanaa jabkii Geedo Guray. kanna waxa weeyaan jabkanna waxaa la yihahdaa Simbiti Guray baa la yihahdaa. Simbiti Guray marka waa jabkii ugu horeeyey ee xabashi oo wadar ah oo ciidamadeedii iyo hogaamiyaasheedii lagu baabi'iyey. Simbiti Guray marka ninkii u baahan Google karayn karaa, waad heli karaysaa taariikhda ay leedahay. intaa kadib saraakiisha ay soo horo, saraakiishaas oo ahaa rag cajaayib oo iyaga laftooda aad u tababaran, laguna dhaadanayay inay dagaaladaasi guul ka keeni doonaan. waxaa ka mid ahaa ninkii la oran jiray Rubin Makail. Rubin Makail wuxuu ahaa abaanduule aad iyo aad u tababaran, dagaalo badanna intuun imaamka iman ka hor xilligii Garaadoosh ciidan baanduule ahaa oo dagaalo badan oo dad badan lagu laayayna ka qayb qaatay. waxaa kaloo ku jiray walaalkiis oo Caqbaal la oran jiray. Caqbaal laftiisu wuxuu ahaa nin asaga laftiisa laga oo dagaalkana aad ugu baasaa. asalkoodu labadoodaba Rubin Makail iyo Caqbaal asalkoodu waxay ahaayeen dadkii ku noolaa Bali ee la dhala rogay, ee la doorshay, ee la xabashiyeeyay, axmaaradu ay tallaabisay ayay ahaayeen asalkoogi. laakiin dadkeena halkan deganaa bay ahaayeen. waxaa jira in loo jiray Sabrishom isaguna abaanduul oo ahaa oo ka mid ah abaanduulayaashii fardoolayda ee loogu talagalay inay dagaalkaasi guulooweyn ka soo hooyo. waxaa jira nin loo jiro Bularas asalkiisa waxaa la sheegaa inuu reer Fatajar yahay. Fatajar meesha la yiraahdo Sidaamo iyo Bali iyo area dawaaxigaasi inuu asagana ka soo jeeday oo dadkii la tallaabiyay wasana ahaa. waxaa kaloo jira nin Samnaajna waa lamid reer Fatajar oo asalkiisa sidii taariikhdu xusiiso.
sunaaji nin la yaraha jiray sunaaji ama sunaajiil waxaa kaloon doonaya in la xasuusiyo waxaa jira magac inaga salguuray oo waaga hore soomaalidu la bixi jirtay oo magacdaasi waxay ka dhigan yihiin imika waxaa jira magacan sunaajiil jiil xarafka labada saddexda xaraf ugu dambeysay jiil iyo makaayil iyo waxaasoo dhan waxay ahaa magacdu dadka soomaalidu la bixi jireen laakiin isdhalan rogay oo markii la kala baxay oo bad maxaa loolan jiray bur iyo biyo loo kala baxay dadku ina muslim noqdeen oo soomaalidii yani soo xoojiyeen ina ay dee halkoodii ku hareen ina ay u tallaabeen tigray iyo maxaa axmara ayay magacdaasi ka baxeen meesha sababtoo ah magacu marka uu martabadiisii ka baxo ama magacu wixii uu ka tarjumayay uu meesha ka baxdo waa adkaanaysaa in dib loosii manfacsado marka magacdani markaan raadraac ku samaynayay magac badan oo soomaaliyeed baa ku jira xataa boqoradoodii wuu noo soo socdaa boqorka libna dengel yidhaahdo iyo wanaagsigad waa magac soomaali libna dengelna waa la mid marka raggani aan idiin sheegayo ayaan barnaamijkii kusoo gunaanadayaa waa rag abbaanduulayaashii ugu cajiibsanaa keenayna in istaraatiijiyada dagaal ee soomaalida ku foogneed la bedelo axmed gureyne uu noqdo geesii markaasi meel waliba bad iyo berri dadkii joogay ama buuraleyda ama beeraleyda ama xoolodhaqatadii ay u soo hiriilaan aragtidiisa waxa weeyaan robin makaayil iyo walaalkiiyo caqbaa ahaa sabrishom bularas samnaaj sunaaji intaasiba intaa kadib dagaalkan wuxuu keenay burburkii ciidanka ugu xoog badnaa ee xabashida waxaana xoogeystay niyadda dagaalyahanada maamulka uu imaam axmed gurey uu hogaaminayay haddaba intaa kadib maxaa dhacay dhaqanka iyo caadada bulshada soomaaliyeed waxay ahaan jirtay marka dagaalada la galo oo la jabiyo oo lasoo boojiyo caruur iyo dumar iyo adduunyo iyo qanimaysi lasoo boojiyo waxaa lagu noqon jiray xaafadihii ama dhulkii laga yimid dhaliilaha la sheego sababaha ay soomaalidu markii ay 6% ay Ethiopia qabsadeen sababaha ay ugu sii nagaan waayeen dhaliisha halka marka laga hadlayo ee dadka culimada ay ka hadlayso waxa weeye waa noqoshada yani magaalo marka aad qabsato dabadeedna aad maamul u samayso dabadeedna maamulkaas aad amiir iyo yani dadkii horjoogaha u samayso waxa weeyaan magaaladaasi waxay hoos joogaysaa nidaamka iyo aragtida iyo fakarka iyo ideolojiyada adiga aad xambaarsan tahay laakiin markaad magaalada dib uga noqoto cadowgu magaaladii uu kusoo noqonayaa dadkii ku taageerayna way laynayaan dabadeedna waxay noqonaysaa haddana inaad mar kale dib u qabsato marka meelo badan oo dhulka tigray iyo ahmaara ka mid ah sababaha ay dib u dhac dambe oga yimid waxay ahayd ka noqoshadii laga noqday haddana culimmada dhinaca kale waxay leeyihiin way adkayd in dhulka masaafada intaa la eg ay jugraafi ahaan aadan garanayn in lasii holiyo lagu sii noolaado marka imaam axmed gurey markii dagaalkani qaybtii ugu horeysay ee jabkii ugu weynaan uu xabashi u geeyey dib buu usoo noqday dabadeedna muxuu sameeyey wuxuu tegay meesha loo yaqaana sirbah markaa waa meel iyaduna ka tirsan ee deegaanadan maanta deegaanadeenan maqan ee xoogga lagu haysto meel ka tirsan oo nawaaxiga harar iyo eriyada ah waxaa sii raacay 30 nin oo ka mid ah raggii uu ku dhaadanayay ee garbaha u ahaayo fardoolayda ahaa waxaana loogu talagalay in fardaha lasoo naaxiyo farasku marka uu dagaalka galo oo bilo iyo waqti dheer dagaal ku jiro waa in dib loo celiyo oo lasoo jara bixiyo oo lasoo naaxiyo oo dabadeedna mataqaana waagi hore fardaha subaga xoolaha ayaa la cabsiin jiray xataa waxaa loo samayn jiray yani tigaada ama cawska kiisa ugu macaan ama ugu wanaagsan dareemada iyo inta tigaada boqorro kala leh tigaada kala sarreysa oo kala protein iyo energy badan ayaa gooni loo siin jiray marka wuu ogaa in warma kusoo maqan yihiin sirbaha markuu tegay wuxuu faray yani ciidamadii in fardaha xakamaha laga sii daayo si fiican loo soo naaxiyo iyagana ay qoysaskooda iyo xaafadahooda ku noqdaan kadib duulaan badane
dadkii wuxuu u tusay in la nasanayo laakiin isagoo nasiino oo ma oolin sababta wuxuu xambaarsanaa mas-uuliyad aada u sarraysa. muxuu sameeyey marka intii ciidamadiisii ay nasanayeen isaga iyo 30 ka mida muxuu sameeyey? soomaalidii markaasi bilowday inay wax farataystaan ama markuu nidaamkii garaacatoosh leecay ka faa'iidaystay inay kala biiqbiiqaan oo kala tagtagaan ayuu wuxuu dib u bilaabay inuu wada hadashiyo oo uu ugu baaqo inuu dib ugu soo noqdaan. wuxuu ku soo wareegay ilaa Saylac ilaa Berbero hoosteeda dhulka reserve area hawd jigjiga meesha maanta dhacdo ilaa Shabeelle meesha khalaaf ay ku taal maanta ayuu soo maray isagoo reer kasta oo beel kasta oo Soomaaliyeed ku leh jihaadkii wuu bilowday. raganimadii iyo Soomaalinimadii iyo dadnimadii waxay ku xiran tahay inagoo afka saarno dhinaca waqooyiga marka waa dhinacii Tigreega iyo Axmaarada. guwaabadaas uu aaday intii raggii kale ee qumbaha iyo maxaliyada iyo tufaaxa iyo sala dhacayeen isnaaxinayeen halkaasuu ku maqnaa. barnaamijka qaybtiisii hore ee noogu macdarnay kacaankii kurbada reebay daafurna nooga dhignay imaam Axmed Gurey duulaan badane xanaqaadkiisii aaraahdiisii gubaabadiisii qaabkii uu u dagaalgelin jiray dadka bardhaxaadka oo ahaa ciidamadiisa dhexe iyo baadasha aaraahda dagaal ku galaano yahuudi inta ayaan ku soo afmeeri doonaa. waxaan markaa aynu isdul taagaynaa qaybta labaad ee barnaamijkeena oo iyadana ah xaalad taagan oo cakiran oo nuux sidiid ah. xaaladaas aynu u galaynaa wax yar kadib ama qadar yar kadib hadduu Ilaahay yiraahdo. intaa kadib daawadayaal qaybteeni barnaamijka ee gabagabada ah ayaanu ku soo afmeeri doonaa xalqadeena maanta inoogu magac darnay kacaankii kurbada reebay. qaybtaan kaga hadlayna waxa weeyaan arrimahan soo socdo. 1 bulshada Soomaaliyeed intii ay nooleed waxay ahaayeen dad dhiilla u joog ah oo noloshoodu ay mar walba ahayd mid rafaadka iyo silaca iyo daranyada la jaal ah ama la jaar ah. bulshada Soomaaliyeed inta ay nooleed adduunyada ay ku nooleed waxaa lagu tilmaamaa inay ahaayeen dad mar waliba nabadda iyo colaadda dhexdeeda ah, marna aan nabadda waqti la tirin karo ama waqti cayiman aysan u guurin ama u hayaamin. mar waliba waxay ahaayeen ligan dhex u ah colaad iyo nabad. waana tan Soomaalida tiraahdo mar walba marka la is wareysanayo maxaa la iska wareystaa waa colaad iyo nabad. waxa weeyaan waa marna waxaa la iska wareystaa abaar iyo maxaa la iska wareystaa iyo barwaaqo. bulshada Soomaaliyeed inta ay nooleed waxay nafteeda iyo maalkeeda iyo deegaanadeeda ku maareynaysay male iyo ifafaale iyo odoros rageed iyo mid dumareed oo isku sidkan taasoo mar walba lagaga baxayay xananada iyo qodxaha la daadsho ama loo daadiyeyba. bulshada Soomaaliyeed sida taariikhdu ay xusayso taariikhda lama hayo 10 sano oo isku xigta oo Soomaali ay hurdo ku laday nabaddu mid waxaa jirta ula boocato ku tukubaysa. nabaddu mid waxaa jirta aanan lahayn isku haleyn iyo amni iyo in la nayaayira aan lahayn. laakiin nabadi ma tahay marka laga hadlayo nabadda macaankeeda iyo dhadhankeeda laga hadlayo waa nabadda qofka uu aamino isaga iyo jiilka uu duriyadu dhalay iyo kuway dhaleen inay manfaacsan doonaan. taariikhda marka laguma hayo sida xusayso 10 sano oo isku xigta oo Soomaalidu deegaanadeeda ama sida isugu xiran tahay nabad waarta oo macaan oo bilaa ah oo aan musuq lahayn oo aan kala ama isa sooc lahayn inaysan soo marin. haddii gobol nabdoon yahay gobol baa qiiqaya, haddii gobolka kale uu qiiqayo mid bay abaari haysataa, kan abaari haysata
mid kale daad baa rogay kan kale waa laga qaxayaa. soomaaliduna waa dad isu halboolo furanoo way isa saameeyaan. u fiirso jabuuti haddii abaari ka dhacdo NFD abaarta way saameyn. bari haddii colaadi ka dhacdo diridhabe iyo harar way saameynaysaa, sababtoo ah waa duul qura. dadku arrimaha lagu garto inay dad isleeyihiin waxaa qayb ka ah saameynta nololeed. adduunyada maanta waxaa jira wadamo waxaa jira markay wax ka dhacaan ama wadamada hormaray ama gobollo ay wax ka dhacaan, gobollada kale ay nabadooda isaga jiraan oo iska raaxaysanayaanoo shaqadooda wa ahayn. soomaalidu caanaha markuu weelka qofku u buuxsamo, weelka markuu u buuxsamo mid buu barhka yahay. marka ujeedadeeda waxa weeyaan xaaladda maanta ummadda soomaaliyeed ay ku sugan tahay waa xaalad qof kasta uu ka dharagsan yahay, laakiin hab qayb qofka waxaa jira kal wax la yidhahdo qofka qalbiyan siduu u dareemi karaa xaaladda maanta jirta. qalbiyan siduu u dareemi karaa xaaladda maanta jirta. dad badan oo inaga mid ah waxaa la gaarsiiyey heer ay yidhaahdaan waar dee soomaaliya niyow ilaahay baa u maqane, dee niyow waxba lagama qaban karee, dee aan sidaa aanu daawanno. qofka marka heer quusa la gaarsiiyo wuxuu ka baxayaa aaminaadii rabbiga ayuu ka baxayaa. waayo diinteenna waxay noo sheegtay in qofka qawi uu yahay, qofka islaamka inuu qof quwad leh oo xoog leh oo niyad haya oo guulaysan kara inuu yahay. laakiin qofka hadduu yidhaahdo waar waddankan ilaahay baa u maqan, micnuhu waxa weeyaan cidlo ayay raganimadii magan u tahay. raganimadii ayaa cidlo u magan ah. marka ilaahaygu ku abuuray dhulkani iyo jugraafiga wuxuu kuu dejiyey inaad ilaaliso oo aad manfacsato oo aad xumaanta iyo warasada iyo rafaadka ka ilaaliso. dhulkan laguma dejin inaad intaad iska seexato tiraahdo ilaahay baa u maqan. ma jirto. qof waliba camalkiisa la raaciyey. qof waliba camalkiisa la raaciyey. camalkaagana waxaa lagu raaciyey inaad wanaagga ka shaqayso. dadka qaar waxaa la gaarsiiyey inay yidhaahdaan soomaali way kala tagtay, xaafad bay noqotay, guri walba ardaagiisibuu meel walba soo ootay, marka anigu maxaa iga galay. dadka qaar waxaa la gaarsiiyey inay yidhaahdaan waar waddankii waa la boobaaye timaadidoo kaale aad boobtid, gobolka aad doontid ka soo jeed. waar waddankii waa la boobaaye inta timaadid wasiir baad noqonaysaayo, sarkaal baad noqonaysaayo, maxaa la guddoomiyaa lagaa dhigayaayo, waar waa la xaalufinayaaye kaale dhinacaaga ka soo gal adna xaalufi. dad badan oo noocaasa oo waxayna horboodaya caqliga noocaasa lagu barbaariyey oo la tusay soomaaliya inay tahay meel la fujisanayo oo sidii sabuulka ama xasiidda maalinba in la dhilanayo. laakiin sidaa ma aha. waddanka dad buu leeyahay oo rag iyo dumar uu leeyahay. waddankani dadka aan ka sheekeynayo imaam axmed guri aan ka sheekeynayo iyo raggii ka horreeyey aan ka sheekeynayo ee 4 qaybooda ka horreysay iyo kuwa ka dambeyn doona oo aan sheekadooda soo wado ayaa waddankani soo difaacayay oo usoo dhintay oo daranyada ka ilaalinaya oo cadowga hor taagnaa. maxaa imisaa u go'day difaaca dalkani? haddii maanta waddankeenna uu markaas sidaa u fudud yahay, innagoo maanta ismaanan tooyan lahayn, afka aynu ku hadlayno af soomaaliga ma jireen, dhaqankan aan ku dhaadano ma jireen, caadooyinkan aynu kala dhaxalno ma jireen, dalkan iyo dadkan aan sheeganayno ma jireen. waana la liqi lahaa. adduunyada imise waddan baa la liqay. adduunyada imise waddan oo jiray oo dad u jiray ayaa la liqay. sababta loo liqayna kaalintoodii bay gabeen. nin kaalintiisa gabay cidna uma kaafinayso, cidna uma gufaynayso. haddaad kaalintaada gabto cid ku joojinaysa maanta ma jirto. adduunyada maantana waxa weeye waxaa ka socdo shimbiri qoorqabad baa waagoor waxa loo jiray shimbiri qoorqabad biyo kuma cabto, laakiin maanta qasab baa biyo laisku cabsiinayaa. haddaan kusii siqo markaa ujeedadeeda ama bu'da barnaamijkayga qaybta ugu dambeyso, waxa weeyaan waxaa dhiilla ka taagan tahay ama dadku ay ka seexan laayihiin sabigii iyo dadkii waaweynaaba xaaladaha ka taagan marsooyinkeenna ama dekedaha soomaaliyeed. xaaladaha ka taagan haba u badnaato dekeda berbera, magaalada berbera rabo inaas dul taaga. marka
waaga hore caadada Soomaalidu waaga hore dadka Soomaaliyeed dhulka maysa kala sheegan jirin qofka beerta uu leeyahay iyo xoolaha uu leeyahay dadka kale wuu ka xigsan jiray laakiin dhulka lama kala sheegan jirin magaalo haddii dhibaato ku dhacdo ama daad ku soo rogmado ama cadow ku soo duulo lama oran jirin magaaladaas reer hebel baa iska leh aynu cadowga u loogno cadowga ha ku durduriyo cadowga su doon ha ka yeelo lama oran jirin waxaa la oran jiray murti Soomaaliyeed oo waxaa la adeegsan jiray kala tag kala loolasha dhaanta war dadku inay iswataan oo isku duubnaadaan ayaa dhaantay in sidaa lagu kala tago magaalada Berbera oo kamid ah magaalooyinka qadiimiga ah ee ummadda Soomaaliyeed ay ku faanto Berbera waa magaalo guun ah oo ay ku nool yihiin dad ilbax ah dadka reer Berbera waa dad ilbax ah oo taariikh badan ku leh deegaanada Soomaaliyeed Berbera waa magaalo istiraatiiji ah waa magaalo hodan ku ah kheyraadka kalluunka Berbera waa magaalo lagu dhisay heykal qarannimo magaalo lagu dhisay weeyaan cabdiqani aad baan ku salaam walaalo Berbera waxaa lagu dhisay heykal iyo maxaa la yiraahdaa nidaam dawladeed Berbera dadka degan waa dad Soomaaliyeed oo u baahan in laga gaaro miliqsiga xabashida ay u soo miliqsanayso inay ku nabad guuriso dadka iyo deegaanka Berbera Berbera lughaya way u baahan tahay lughaya laasqoray way u baahan tahay laasqoray caluulay u baahan tahay caluula ama hobyo waxay u baahan tahay Kismaayo Baraawe waxay u baahan tahay Boosaaso xeebaheenaasi weligoodba saasaa loo difaacayay marka magaalada Berbera waxaan doonayaa inaan arrinteeda aan uga hadlo arrintan iminka taagan dadka reer Berbera shaqo kuma laha dadka reer Berbera waa dad ilbaxsan oo sheego dixiina oo ogol Soomaalinimadana ogol taariikhdoodana ku dhaata laakiin dadkan u hiliilaya ee dhulka boobaya ee dhulka mooroduugaya ee xabashida u gacan qabanaya reer Berbera qofna kaga ma jiro marka waxaa loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed inay isku hilbadiraan Berbera haddii maanta sidaa ay nagu dhaafto tallaabada xigta waa maxay Berbera iyo Wajaale magaalada la yiraahdo Tog Wajaale waxaa la sameeyay wiiga haddana soo dhaafay wax loo yaqaano magaalada la ballaarinayaa sababta magaalada loo leeyahay la ballaarinayaa waxa weeye wax kala ma ahan go fidsiga baa jira gu'i baa la sii fidsanayaa Tog Wajaale iyo Berbera inta u dhaxayso waxaa iman doonto in qof Soomaali ah oo dhulkaasi jooga in la waayo doono imanayso dadku marsada un bay ka hadlayaan laakiin waxay iman doonto marsada marka la milkiyo oo gacanta lagu dhiga haabka in dadkeedana la baabi'iyo oo la moorodugo oo la qixiyo Wajaale waxa loo sii ballaarsanayo wax kala ma ahan waa hantida iyo agabka iyo dadnimada magaalada ay leedahay in lagu soo la keensado oo halka ay noqoto waraabihii meesha godki waraabaha sababtoo ah yaa la isticmaalaya waxa la isticmaalayaa mid Soomaali oo eka ah oo awrkiraala ah oo aan waxba hambayn oo aan la qayoon oo aan dhargin ayaa la isticmaalayaa Berbera haddii maanta sidaa ku baxdo kuwa ku xeeran u dhow ayaa ku soo xiga way istalaalaysaa moorodugu wuu socdaa nimankan DP World yiraahdo waa hanfi iyo xagaa isku jira hanfi iyo xagaa iswato way DP World meeshay ku degaan waa ayax oo kale wax cid ay hore u mariyaan dunida lama sheegin marka waxaan doonayaa markii inaan ka hadlo aan ku soo gunaado arrintii Imaaraadka ka dhacday ee heshiiska Ethiopia iyo DP World maamulka Hargeysa ama Somaliland ay diyaar ay dhex joogeen waa heshiis qof kasta oo Soomaali oo soo jeeda uu garan karayo laqdabada ama waxa ku hoos aasan waxaa la mid ah heshiiskii meesha ka dhacay 1884 shirkii Berlin ee lagu qaybsanayay shucuubaha Afrika Amerikada Koonfureed iyo Asia
saami suga waxaa ka ahaa africa in dhulka xoog lagu siiyo ninkii la oran jiray Menelik ee tuugga weynaa ahaa. heshiiska DP World meesha ka dhacayay maamulka Somaliland iyo nimanka la yiraahdo DP World siday doonaanba ama gar iyo gardaraba ha ku heshiiyaan xabashi maxaa dhex fariisiyay waxa dhex fariisiyay waa saami suge. muxuu saami suge ka yahay? wuxuu saami suge ka yahay inuu iskaba raaciyo dhulkan uu hadda xoog lagu haysto Soomaali galbeed ama Ogaadeniya iyo dadka waqooyiga ku nool inay noqdaan dad mid la dhufaano, mid la bahdilo, mid la eryado, mid la xiro, mid lagu soostanya iyo xabsiyadan dadka lagu jirdila ee Ethiopia ku yaalo lagu guro. kuwa maanta marka dadka dabka ku guraya hablahoogi iyo caruurtooda dabka ku guraya iyaga ku soo xiga. xabashi nin amaanay ama nin wax u qabtay ama nin hoos galay oo ay ku agbaraaray taariikhda lama sheegin. jigjigo inteeba u nacamleynaysa xabashida oo maanta xabsiyada ku jirta. imisa xabsiyada ku jirta jigjiga kuwa maanta u nacamleynayay ee nidaamka xabashida ee dadkooga bahdilayay imisa xabsiyada ku jirta. abaalgudka xabashigu waxa weeye Soomaali baa tahay. shirtam Soomaali waa Soomaali. abaalgudkoogu waa sidaa. maalinta danta laga gaaro ama xabsi baad ku jirtaa ama waxa weeyaan ama dee aabaha baad foodka la cabtay. marka waxa loo baahan yahay arrintan waa arrin qarameed. berbera reer ma laha, xaafadna ma laha, jilib gooniyana ma laha. berbera waa magaalo qarameed, qarannimana lagu dhisay. Soomaalina hiil ka doonayso ama madax ha ahaadaan ama siyaasiyiin ha ahaadaan ama dhalinyaro ha ahaadaan. waa magaalo hiil oga baahan sidii loogu soo hiilin jiray Soomaalida isugu hiilin jirtay. sababtoo ah walaalka Soomaalida hore waxay jirtay walaalka waa yeelkadii baa lagu dhaqaa. war waxa inaga aan isku hayno ee gudaheena waa yeelkadii xagga inoo dhig. laakiin magaalada hiil bay u baahan tahay, Soomaalinimo u baahan tahay, isku hilbadir bay u baahan tahay, in cadowga laga riday u baahan tahay. ragga aan ka sheekeynaya imika war mohoogi baa loo baahan yahay. haddii laakiin sida ay socon weydo wax badan oo inaga mid ah ama arrimo badan oo inaga mid ah way fuli. barnaamijkeennii kacaankii kurbada fayday iyo qaybtii kale ee aynu kaga hadlaynay qodobkii labaad aynu kaga hadlaynay mooroduuga lagu wado dadkeena intaa ayaanu kusoo afmeeri doonaa insha allah. barnaamijkan waxaan mar kale ka cudur daaranayaa inaan soo koobay sababtoo ah waxaynu u baahannahay inaynu fahanno waxa aynu ka hadlayno, inaynu isu geyno shalay wixii dhacay ee dhibaato iyo rafaad iyo hagardaamo ahaa iyo maanta waxa taagan maxaa isu ekeysiiyey. waxa isu ekeysiinayo dadkii waa isla inagii, deegaankiina waa isla deegaankii. hadalkayga murtiis waxaan kusoo gunaanadayaa nin odaya hadda kahor wuxuu igu yidhi waddankii tegey. waxaan ku yidhi intuu qof Soomaali oo damiir la nool yahay dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteennaba daranyo ka dheer. wuxuu yidhi waa runtaa, laakiin abrono mid baad ogeyn oodan ku darsan diiwaanka. waagi hore waxaa jiru yidhi dad gumaystaha ama cadowga gumaysiga Talyaaniga iyo Faransiiska iyo Ingiliiska iyo xabashi dad la socday oo la tirsan jiray oo la oran jiray xaafadaas waa gumaysi la socod ama waa gumaysi mataqaanaa gumaysi deeg ama waa har gumaysi ayaa la oran jiray yidhi oo waa nin tilmaamo buu ahaa. laakiin maanta mahigaan bay ka badan yihiin buu yidhi. mahigaan ayay ka badan yihiin. mid baahan oo baahi u geysay inuu waxaan sameeyo, mid nasab doon ah oo isagoo heli karayo inuu mansab ku helo, sharaf bahdil mansab ku helaya, mid laga dhaadhiciyey kursiga hebel baan kaaga tuuraya adiga maalmo sii baraaraya fariiso. wuxuu yidhi maanta dad noocaas oo badan oo ciidda ka badan ayaa dhulkeena sidaa u sunsumaya oo dhulkeena sidaa u dhex buuxa. marka waxay oran jireen Soomaalida hore qori iyo qiiqiis baa la isla tuuraa. war qofka xumaan falaha ah ama xumaan geeyaha ah ama musuqa iyo wax ku raadsa, sharaf darrada iyo nacasnimada wax ku raadsa, war kaasaa u baahan horta inaan la dagaalano. hadda kahor waxaan ka tagay waxaan yidhi war wax kale haddaad weydaan qaniyo oo la taga. wax kale haddii aad weydaan Jabuuti dadka ku nool waa bahdilan yihiin. waqooyiga lagu bahdilan yahay, NFD baa lagu bahdilan yahay, koonfur waa lagu bahdilan yahay, Soomaali galbeed Mogadeen waa lagu bahdilan yahay. shacabkii Soomaaliyeed oo 30 milyan ah
ayaa waxaa ka dhex shaqaysanaya dilaaliin aan dhammayn 100 qof 100 qof haddaan kusoo yaacno oo nin walba ninka u dhow uu qaniyo goosto war waxa ugu fududan samayn karno adduunka shacab baa wax bedela adduunka shacab ayaa wax bedela kuwani horeyna oo ma socdaan gadaalna oo ma socdaan noloshooda waxay rabaan markay iyaga ay wabxaan ay dhargaan kuwa ay dhaleen inay haddana ku wareejiyaan nin xaaraan iyo xaqdarro iyo xoolo masaakiin iyo xoolo agoomeed lagu soo kariyeyna ummad ma hogaamin karaa waa maya dadka markaa la doonayo waa qori isku dhiib xumaan wade inankiisii oo isna xoolihii masaakiinta lagu soo koriyey ayaa la rabaa in meeshii loo layliyo oo madaxweyne laga dhiga ama wasiir ama dee xildhibaan ama wakiil wax nooca ah war shacaboo ka hortaga waxaan idinkaas iska leh intaasaan kusoo afmeerayaa barnaamijkayga waxaan kusoo khatimayaa haddii ilaah yidhaahdo albaabkan oo inoo ballana inaynu iska xidhno xumaan wadayaasha intaa ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkeennii kacaankii kurbada reebay oo xambaarsanaa arrimo badan oo aan u jeel qabnay ogaanshaheeda barnaamijkan barnaamij lama intaan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu